kuwa bedelay fikirkii laga haystay oo ahaa in aysan ku noolaan karin cimiladan. waxaa la xoreeyey 100 sano ka hor. waxay ku baraareen dhulkan ay noolayaashii ka horeeyey ay ka hulaaleen. waana dhulka aanan laka rajaynayn nafar iyo noole in ay ku baraaraan. saxaraha Namib ee koonfur galbeed qaaradda Afrika. waxaa ku duugan sir cajiib ah. dhibic walba oo biyo ah waxa ay ka dhigan tahay saadaasha nolosha ama geerida. dhexbartanka saxaraha, meel aanan nolol laka rajaynayn, waxaa ku jiro maado oo meel walba ay taalo nolosha ay macquul ka tahay. Rudolf waa magaalo xeebeed jambiga u saaran badweynta Atlantic. magaaladan waxaa aas-aasay isticmaarkii Jarmalka, taasi oo lagu magacaabi jiray Jarmanka koonfur galbeed qaaradda Afrika, haddana loo yaqaano Namibia. dhaymanka marka laga helay meesaan 1908, Jarmalka wuxuu bilaabay in uu gidaar ku xiro dhulkaasi, waxaana lagu magacaabi jiray dhulka lamagalaanka ah. magaalada Rudolf waxay deegaan u noqotay boqolaal macdan qodayaal, kuwaasi oo Jarmalka ugaga yimaaday si ay nasiibkooda u tijaabiyaan, macdanna u qotaan. sidoo kalena waxa uu dhisay qadad tareen oo isku xiriiriyo magaalada Rudolf iyo meelaha macdanta laga qodo. taasina waxaa calaamad u ah fuustooyinka biyaha ee khadka tareenka ku agyaalo. biyaha waa badeecada ugu qaalisan marka la joogo saxarahan. laakiin dagaalkii koowaad ee adduunka marka uu bilowday, Jarmalka waxaa ka adkaaday Ingiriiska, dhulkiina waa uu kala wareegay. intooda badan way iska laabteen, halka qaarna ay joogeen. kadib markuu soo shaacbaxay isticmaalka baabuurta, waxaa dhacday in ay iska sii daayaan fardihii ay wateen. 50 ka mid ahna waa ay badbaadeen. sababtuna waa ceelkan oo ay biyaha ku jiraan, halka maanta ay tiradooda gaarayso 150 faras. fardahan waa in ay baad helaan ka hor inta aysan haraad dartiis aysan ceelka uguga soo laaban. sababtuna waa in aysan 40 kiiloomitir wax ka fog ceelka aysan aadi karin. 11 bilood kadib waxaa dhashay faras cusub. saxarahan wuxuu leeyahay shuruuc, kuwaasiyo u gaar ah. xitaa cooska angagan ee nuurka iyo nacfiga aanan lahayn waa mid nooleeya fardahan. wakhtigan waa xilligii roobaadka, laakiin ma aysan imaan. kama tegi karaan saxarahan, mana aadi karaan dhulka koonfurta ah ee barwaaqada ah. laakiin dabacadan meel walba ay aadi kartaa.
ayadoo ka ugaarsanayso meesha uu webiga iyo badda iskaga darsamaan. Magaalo xeebeedkan oo ah deegaan ay dadkiisa mar hore ka hayaameen, waxaana ku haray guryo iyo warshado dayac awgeed u burburay. Waana meel ku habboon dabeecadda in ay ku tarmaan. Dabeecooyinkan yaryarka ahna waa kuwo dugaashado guryihii ay dadkooda ka hayaameen. Sidoo kale meeshan waxaa ku nool shimbirta loo yaqaano penguin. Shimbirta penguinta ee midabkeeda uu cad yahay waa tan keliya ee u adkaysan karto cimilada kulul ee qaaradani Afrika, ayaga oo aanan lahayn cadow ugaarsado. Taasi ayaa sababtay in tiradooda ay kororto saxaraha dhexdiisa. Faraskii yaraa ayaa waxa uu ka gudbay asbuuciisii ugu horeeyay ee noloshiisa. Barqadii heerkulka wuxuu gaari karaa in ka badan 40 digrii, halka habeenkii heerkulka uu ka hoos maro xaddiga ay biyaha ku barafoobaan kalabar. Fardaha yaryarka ah waxay ku geeriyoodaan bisha ugu horeyso ee noloshooda, sidii kuwii ka horeeyeenba oo kale. Waxa uu ku dhashtay dhul nolosha caadiga ah ay adag tahay, halkaasi oo ay khatarta joogto tahay. Dhurwaagan ayaa garwaacsaday faraska yar, isaga oo isku dayayo in uu gees ula bayro faraska yar. Laakiin qoyskii faraska ahaa ayaa bilaabay in ay degenaansho muujiyaan si aysan fursad u siin dhurwaaga, iyagoo si nabadgelyo ah ceelka ugu soo laabtay. Fardaha keligood ma ahan kuwa u soo doonto biyaha meeshan, waxaa sidoo kale meeshan yimaado dayrada. Shuruucda u yaala saxarahan waxaa ka mid ah in biyaha laysla qaybsado. Noocan dayrada ah waxay leedahay hub ay u babacdhigi karto halista dhex taalo saxarahan, taasi oo ah geesahooda dhaadheer. Marka ay biyaha cabaan waxa ay raadsadaan dhul baad leh. Dayradan waa mid adkaysi u leh cimiladan, ayadoo awood u leh in ay kaydsato biyo badan oo ay badiyo isku khatanaan karto in uu gees ula bayro marka ay u socdaan dhulka faraska yar ee bahadka leh. Laakiin saxaraha faraska ahaa waa midka ugu bilaabay caalamka degenaansho muujiyaan, isaga oo wato duruuf si aysan fursad u siin dhurwaaga, iyagoo si nabadgelyo ah nooleyaasha inta badan soo laabtay. Fardaha keligood ma ahan kuwa u soo doonto biyaha meeshan, waxaa sidoo kale meeshan yimaado ugaarsata dayrada dabacada. Shuruucda u yaala saxarahan waxaa ka mid ah libaax badeedyada in biyaha laysla qaybsado dhashooda. Noocan dayrada ah libaax badeedka maalin waxay leedahay hub in ay u babacdhigi dhasheeda halista, taasi oo keento in ay faaruqiso dhasheeda. Taasi oo waana marka geesahooda marka ay dabacada cunto. Marka ay biyaha cabaan libaax badeedka waxa ay raadsadaan dhul baad leh. Halkan ayuu ku eg yahay qaybteena koowaad. Dayradan inta mid adkaysi u leh cimiladan. Qaybta labaad ayaynu ku dhammaynaynaa in ay kaydsato